السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلامي دمان أصحاب اللي halkan ku jira magacaygu waa LT channelka daawanaysiina waa LT inta ma ku soo noqdo waxaan noo socday taano aan kaga helnay taariikhdii laga soo bilaabay 60kii waxyaalihii dhacay dhibka ahaa dawladnimada Soomaaliya hore u socon weyday iyadoo markastaba ay heeraaska markay dhacaan ay dadku iyo dalku u gali jiray waxyaalooyin aad u xun ama waxyaalooyin aan mataqaanaa isdhahayn u galahay waxaan u qaybsamay buugan aqrinay oo aan ka soo dhignay warbaahinta BBC-da 6 jadwal 6 qodob waxaan wadnay qodobka koowaad oo ahaa Cabdirashiid laweynii Soomaaliya Cabdirashiid lagu deelaasnaa waxaan ka sameynay laba baarti oo hore baartiyaas oo dhaxlaynay qaabkii uu dalku isku bedelay iyo sida mataqaanaa madaxweynaha markii la dilahay ay dad iyo shacab uga warqabeen iyo hantii hore looga hayay dunida aad aragtaan markii laga hadlayo taariikhda dalka Soomaaliya hore u soo maray iyo taariikhyaha waxaa saan caadayn channelada looga hadlana waxaa loo qarshaqeeyaa si aan fوق العقل intaas laga soo gudbo anagu channelkan waxaan ku gudbaynaa taariikh waxaan ismeynay taariikhda dalkeena iyo dadkeena ugu barto ay dunida ku soo hagaagto anagu markaa soo wadnaa taxliilinta waxyaalooyin kale oo mataqaanaa aad u fara badan markaas si ay noogu hirgalaan waxyaalahaas kale waxaan dhammaan asxaabta qaaliga ah waxaan maantay baartigan dhexdiisa in aad channelka subscribe saadaan like na ku boobtaan si markaas aan u sameeyno taariikh madhamaata oo baartiya oo aan ka sameeyno qodobadii ay dalku ku socon waayeen si hadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay qodobkaas kala sameeyo ay u hadlaan Axmed Noqob baarti saddexaad waxaan uga hadlaynay dilkii Cabdirashiid madaxweynaha Soomaaliya Cabdirashiid asaga ka sii wadayna markii la madaxweynaha Cabdirashiid koox saraakiil ah oo ciidan ah oo madaxa eeganayay xukunka ayaa iska faa'iideystay dilka qaarajinta ah waxayna si ku daadan kula wareegeen hogaankii dalka taas oo ahayd dhacdo kale oo ku sidkan dilka madaxweynaha balse yeelatay raadyo dheer sii jiray oo sameeyay jiritaanka dalnimo Soomaaliya hase yeeshee Janaal Maxamed Nuur Galaal wuxuu qabaa Maxamed Siyaad ayuu qabaa weeyaan si qorsheynayay afgembiga isla markaana isaga u dhiisa ay arrintaas isku khilaafeen waxaan ku soo celiyo isla markaana isaga u dhiisa ay arrintaas isku qabteen kadibna beledweyne loo adaalay si ciqaab Janaal Galaal ayaa wax loo bedelay beledweyne 5 arrimood oo aadan ka ogeyn 60 guurada xornimada Soomaaliya 5 marxaladood oo uu soo maray calanka Soomaaliya 4 arrimood oo lagu xasuusto dawladii kacaanka siyaadada ciidamada oo ka mid ah tiirarka uu dalku dalku taagan yahay kuwaas oo ka difaaca dhul bad iyo hawaba aysan ciidina u qabin in dalka wado qaldan ku hogaaminay doonaan midaas oo sidaas daraaddeed waxay heleen taageero aad xoog badan iyada oo 10 sano ugu horeysay xukunka ciidanka
uu ahaa mid hagaagsan intiisa badan horumar culusna gaaray waa baartii saddexaad adoo masalan saxaabta qaliga jannada firab saara waxaan saas ku dhamaynay qaybta koowaad lixda qaybood qaybta koowaad oo dilkii jarnaal madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid ugu dayay la saanood